السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa hoyga dhiiran ee English Learning Furnace qaybtiisa YouTube-ka. halkaas oo aad ka barataan barnaamijyada kala duwan sida conversationo, practice, wada sheekaysi, kelmado iyo doodo. haddaba subscribe noo sar haddaad nagu cusub tahay. haddaad hore noogu saarneed qalbiga ha ogsooni, Allah ku sharfo. waa aniga Cabdisaam Muuse Axmed Cabdisaam dhiirane. insha Allah maanta waxaanu qaadan doonaa English short sentence micno leh isla markaana ah waxyaalaha luqadda Ingiriisiga lagu barto kana mid ah waxyaalaha aasaasiga ee qofka Ingiriisiga isla markiiba uu ku baran karo. waan bilaabi doonaa insha Allah. sentence-ka koobaad, your ideas must be constructive honest. Your ideas must be constructive honest. fikradaadu waa inay noqotaa mid waxtar leh. Your ideas must be constructive honest. fikradaadu waa inay noqotaa mid waxtar leh. Your ideas must be constructive honest. fikradaadu waa inay noqotaa mid waxtar leh. sentence-ka labaad, you are really my confident. You are really my confident. xaqiiqatan waxaad tahay qofka aan sirtayda ku qarsado. You are really my confident. You are really my confident. xaqiiqatan waxaad tahay qofka sirtayda aan ku qarsado. marka qof aad ku leedahay waxaad tahay qofkan saaxiibka igu dhow aan sirta ku qabsado ee sentence-kan isticmaali karta ama weedhan. You are really my confident. xaqiiqatan waxaad tahay qofka aan sirtayda ku qarsado. sentence-ka saddexaad, the opposition parties criticized the government of doing corruption and mismanagement. The opposition parties criticized the government of doing corruption and mismanagement. xisbiyada mucaaradku waxay dhaleeceeyeen dowladda iyaga oo ku dhaleecaynaya maamul xumida iyo musuqmaasuqa. The opposition parties xisbiyada mucaaradku criticized waxay dhaleeceeyeen the government dowladda of doing iyagoo ku dhaleecaynaya corruption musuqmaasuqa and mismanagement iyo maamul xumida. sentence-ka afraad, don't be babble such foolish person. Don't babble such foolish person. ha u hantaaticin sidii qof doqona oo kale. Don't babble such foolish person. ha u hantaaticin sidii qof doqon oo kale. Don't babble such foolish person. ha u hantaaticin sidii qof doqon oo kale. sentence-ka shanaad, yesterday was my 10th wedding anniversary. Yesterday was my 10th wedding anniversary. shalay waxay ahayd xafladda sano guuradaydii 10aad. Yesterday was my 10th wedding anniversary. shalay waxay ahayd xafladda sano guuradaydii 10aad. qof markaad u sheegayso xafladda sano guuradaadii meherka ah waxaad u odhanaysaa yesterday was my 10th wedding anniversary. shalay waxay ahayd xafladda sanad guuradaydii 10aad. waayahay sentence-ka lixaad, pardon me your talk please I wouldn't hear you before. igu sii celi fadlan hadalkaaga kuma maqlayn. Pardon me your talk please I wouldn't hear you before. igu sii celi fadlan hadalkaaga kuma maqlayn. Pardon me your talk please I wouldn't hear you before. igu sii celi hadalkaaga kuma maqlayn markii hore. waayahay maanta halkaasay nagu joogi doontaa. haddaba subscribe noo sar haddii aad nagu cusubtahay. haddaad hore noogu saarnaa qalbiga ha sooyin mahadsanid. Allah ku sharfo. waa aniga Cabdisaam Muuse Axmed Cabdisaam dhiirane. insha Allah subscribe noo saara.